السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داود يال دمانتين مسجدka nejashi masjidkii ugu horreeyay Afrika ee muslimiintu ay yeeshaan taariikhda islaamka naga jira goobaha taariikhiga ah ee qadiimiga ah iyo unuga diinta islaamka ee Afrika gaar ahaan dalka Itoopiya inkastoo la sheegay in ka horreeyeen masaajidda ku yaala dalkaasi Masar haddana masjidka nejashi waa masjidka ugu qadiimisan gebi ahaan qaaradda Afrika intaan guda galin tafaasiisha masjidka wuxuu burbur soo gaadhay masjidka nejashi ee ku yaala dalka Itoobiya gobolka waqooyi ee Tigray waxaan ognahay in Itoobiya ka dhaceen dagaal aan waxba la isku hadhin sidoo kale ma jirto warbaahin ku sugan gudaha Itoobiya oo si rasmi ah u soo tabisa waqtiga ay dhacayaan iyo meesha ay ka dhacayaan sidaas darteed waxa la ogaaday horaantii sanadkan 2021 in uu soo gaadhay burbur aan aad u badnayn masjidka nejashi kadib muslimiinta caalamka oo dhan ka falcelinta duqeynta ay la eegteen Itoobiyaanka masjidka iyo goobtaas alla barakeeyay dowladda islaamka aysan hadlin burburka soo gaadhay masjidka nejashi haddana waxaa la dareemay ka falcelinta social media dadka islaamka ah ma cadda bartilmaameedka la eegatay masjidka ugu faaca weyn Afrika iyo dunida islaamka hay'ad uu fadhigeedu yahay dalka Belgium oo dhaqdhaqaaqyo ka sameeyay Afrika ayaa sheecisay in 18 bishii December masjidka al-Nejashi markii ugu horreysay bambooyin la dhacay kadibna ay boob u geysteen militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea ila wareedyo laga helay gobolka Tigray ayaa sheegay in dad ay u dhinteen iyagoo difaacaya masjidka sida ay sheegtay hay'addu dowladda Itoobiya kamaysan hadlin wararka la shaaciyay dhanka kale dowladda Itoobiya iyo Eritrea labadu waxay beeniyeen in ay ciidamo reer Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka Tigray si ay gacan uga geystaan dagaalka lagula jiro xoogagga TPLF telefishinka hadlaafka dowladda Itoobiya ayaa soo xigtay dadka deegaanka oo sheegay in ciidamo ka tirsan maleeshiyadka TPLF ay gudad ka qoteen meel u dhow masjidka Nejashi wax faahfaahin lagama bixin sababta ay sidaas u sameeyeen waxay ku taalaa magaalada caasimadda ee sababa meel u jirta 790 kiiloomitir 500 oo mayl Nejashi waa magaalo yar oo laga helo waqooyiga Itoobiya oo mid ka mid ah meelaha taariikhda hodanka ku ah ee dalka waxay la mid tahay diinta islaamka maxaa yeelay maadaama ay tahay meeshii ugu horreysay ee muslimiintu deegaan adduunka dhammaantood waxay bilaabantay toddobadiisii ee markii masiixiyiintii ugu horreysay nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee lagu dhibaateeyay oo lagu dulmiyay dhulkoodii qoomiyadii Quraysh ee reer Maka iyagoo aaminsan in diinta islaamka nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sidaas ayuuna ku raadiyay meel aamini ah iyo sidoo kale qof naxariis leh oo bixin kara gabaad ammaan ah iyo badbaadinta kuwa raacsan sida ku xusan xisaabtii ugu horreysay ee sii kordhaysay ee lagu bixiyay ibnu Isxaaq sira nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu gartay inuusan ka difaaci karin taageerayaashiisa weerarada kaga imanaya wuxuuna yiri u taga Xabeesha waxa jooga boqor masiixi ah waxa jira cadaalad boqortooyadiisa Xabeesha waa dhulka runta sida darteed halkaas u aada ilaa aan ka gaarno guul anagoo kaashanayna alle sidaas darteed wuxuu magan u noqday boqorkii Itoobiya ama boqorkii Aksum ee masiixiintii dhulka Abyssiin ee maanta Itoobiya ka tirsan boqorka Xabashada ee marka Nejashi oo macnaheedu yahay boqorka ama Nejashi oo Carabi ah wuxuu si diiran u qaabilay oo si wanaagsan u soo dhaweeyay wuxuuna siiyay magangelyo Nejashi oo ah gobolka Tigray ee maanta Itoobiya 15 ka tirsan asxaabadii nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa u soo haajirootay haajiratoonkoodii ugu horreeyay waxayna yimaadeen dhulka Amutis ee Mersin sanadkii 615 aad waxaana ku xigay tariib labaad oo ay la galeen koox ka badan oo ku dhow 101 qof Quraysh waxay isku dayday si kasta oo ay uga farmaroojisato ama ay boqorka ugu dhaadhiciso inuu u soo dhiibo muslimiinta dibna loogu celiyo Maka si kastaba noqotay boqorka ayaa taas diiday isagoo ka cabsi qaba in aan buurada habaan xataa loogu bedeli karin dadkan magangelyada u galay boqorka ayaa taa bedelkeeda u ballan qaaday muslimiinta ilaalin buuxda isagoo ku leh taga oo nabad ku noolaada haddii qofna si xun idin dhaqmo isaga ayaa bixin doona lacag aad u badan nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee qudhiis wuxuu dhiirigeliyay martigelinta Itoobiya wuxuuna faray xertiisa oo timid Itoobiya inay ixtiraamaan oo ilaaliyaan Itoobiya sidoo kalena nabad ay kula noolaadaan masiixiyiinta Itoobiya qaar badan oo ka mid ah muslimiinta waxay sii joogeen wadanka ilaa ay ka geeriyoodeen ama ay ku dhinteen oo lagu aasay magaalada barakaysan ee Nejash masjidka Nejash ama Ahmediin masjid oo lagu magac daray boqorka Nejash
ayaa la sheegay in uu yahay masjidkii ugu horreeyay Afrika ee ku yaal isla markaana ka mid ah masaajidda ugu faaca weyn adduunka. Waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee laga heli karo ama laga arko Itoobiya, gaar ahaan dalxiisayaasha xiiseynaya taariikhda iyo diinta. Waxay ku haysaa meel muhiim u ah taariikhda Islaamka, waxayna u tahay xusuusin waarta soo dhoweynta diiran ee uu sameeyay muslimiinta ugu horreysay ee boqorka Itoobiya ee xilligaas. Sidoo kale waa astaan muujinaysa in Itoobiya taageertay Islaamka markii ugu horreysay ee Afrika inteeda kale iyo inta badan wadamada Carabta xitaa ka hor inta badan dadka Maka. Masjidka Najashi waa goob mudan in la booqdo iyo in la sahamiyo qof kasta oo yimaada inuu soo booqdo. Qof kasta oo soo booqdo wuxuu awood u yeelan doonaa ama wadada loo maro qabuuraha tirha ee ku yaala dhabarka dambe ee masjidkaas oo loo yaqaan saxaabada wadada. Masjidka Najashi waa masjid taariikhi ah oo muslimiinta ugu fadhiya laf-dhabar, iyo sidoo kale in uu yahay masjidka ugu faaca weyn Afrika gebi ahaan marka la fiiriyo. Waa halkii ay diintu naga soo gashay ka Soomaali ahaan. Dabcan haddana waxaa warbaahinta Soomaalidu aad wax ahmiyada ma siin burburka soo gaaray masjidka Najashi iyo dadkeena Soomaalida ah. Waa halkii aan ka soo qaadanay diinta, maxaa yeelay waad dareemi kartaa dadkeenii hore ama culimmadii hore waxay aadi jireen dhulka sare ee Itoobiya si ay markaasi diinta uga soo bartaan intii aan la soo gaadhin waxyaabahan casriga ah ee la isticmaalo iyo isku socodkan adduunka ee haatan iyo sanadadii ama tobanaankii sano u dambeeyay sida saxda u hirgalay. Laakiin qarniyadii hore ma jirin oo waxaa loo doonan jiray diinta dhulka sare ee Itoobiya sida ku xusan, iyo sidoo kale sida ay culimmadeenii horeba halkaas u aadi jireen. Hay'ad Turkiya ayaa markii ugu horreysay 2015 dib u casri gareysay masjidka Najashi ee uu markaas ay ugu tala gashay inay ku tilmaantay masjidka Najashi in loogu talagalay goob loo booqdo sida dalxiiska iyo sidoo kale taalooyin muhiim u ah Islaamka gebi ahaan dunida Islaamka oo dhan. sidaas darteed waxaa la casri gareeyay 2015 oo laga dhigay mid aad u qalabaysan maadaama ay ku aasayeen asxaabadii uu nabigeena suuban naxariis nabadgelyo korkiisa aata uu soo diray, kuwaas oo ku aasan dhabarka dambe ee masjidka Najashi. dhanka kale Itoobiya ayaa sheegtay inay dayac tiri doonto burburka soo gaaray masjidka iyo kaniisad wax lagu tilmaamay oo ka ag dhaweyd malaha sida ay markaasi wargeysyadu qoreen. dowladda Itoobiya waxay sheegtay in masjidkan qarniyada badan soo jiray ay muhiim tahay in dib loo casri gareeyo oo markaasi la dayac tiri doono maadaama ay halkaasi dagaal aan waxba la isku lahayn ka dhaceen. sidoo kale masjidku waxa uu soo dhaweeyaa oo martigelin buuxda u fidiyaa dadka ka ag dhow markay shaqaaqo ama dhibaato ka dhacdo. waa goob lagu soo hirto oo u ah iftiin ama markaasi goob Ilaahay barakeeyay oo lagaga nasto dhibaatooyinka. dalxiiskana waxay u tahay qof kasta oo muslim oo booqdo dalka Itoobiya marka ugu horeysa inuu tago masjidka Najashi ee dhulkaas taariikhiga ah. dabcan taariikh marka la leeyahay maaha wax iska dhayal ah ee waa halka laga soo farcamay ee waxaan isticmaalayno ayaan kala dhaxalnay ama dhaxal halkan ka keenay weeyaan marka laga hadlayo taariikhda Islaamka ee aad ku faaca weyn. waa halka ay Afrika ka soo gashay masjidka Najashi kadib markii asxaabadu nabigeena suuban naxariis nabadgelyo korkiisa aata uu soo diray ay kaga soo degeen ay markaasi ka soo tallaabeen badda cas iyagoo yimid dhulkaas Xabasha iyo boqorkaas Itoobiyaanka ah ee markaasi u fadhiyay martigelinta iyo sidoo kale gabaadkaas amniga ee aadka u ballaaran. dadka Itoobiya ee muslimiinta waxaa lagu tilmaamaa 40% ilaa 50%, iyo inkastoo mararka qaar laga badiyo, taas oo muujinaysa inay haddana ay muslimiintu aysan si aad u ballaaran aynan uga ag dhaweyn masjidka Najashi oo yihiin dadyo kale. dabcan Ilaahay ayaa dejiyay, laakiin masjidka Najashi waa goob aad u taariikhi ah mudanna in la booqdo oo mar walba la booqdo maadaama dadka Islaamka oo dhan markasta oo ay booqasho ama dalxiisaan u tagaan Itoobiya meesha ay tagaan ay tahay masjidka Najashi. sida sheegtay hay'adda Turkiga ee dayactirtay masjidka waxay ku tilmaantay taalo cajiib ah oo muhiim u ah dunida Islaamka, isla marhaantana habboon in diin ahaan loo soo booqdo oo markaas halkaas waxyaaba cajiibka ah laga soo dheehan karo. qodobkan intaas ayuu ku eegyahay. hadduu muuqaalkani ku cajabiyay like, saar, share iyo comment. aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulillaahi rabbil caalamiin arraxmaani arraxiim maaliki yawmi ddiin
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين